amina gursay markii aan gursay kadib sanaain wala soo wareegay markii aan la soo wareegay aan la soo wareegay guriga la soo wareegay reerka la soo wareegay ayay soo raacday intaas gabadhaas markii hore la socon jirtay markii inta la socon jirtay ana gursay la socon jirtay ayaa markii dambe soo raacday kadib 20 cishay ee guriga uga noolay kadib dabeetana in iyadoo gabadh ay uga noolay guriga iyo xaafadda ku nool markasta way naqaameen miya ma naqaameen naqaabku markii meelaha u baxay xidhan jirtay laakiin waxay xidhan jirtay dharkii dumarka iyo labisi shisheeye roob burasha in qalin sunne in labisidi dibnaha wax walba mirsan jirtay wixii dumarka farsan oo mirsan jirtay dabeetana in ma na dareemin xaafadii ma dareemin marka gabadhan iyada isku wadatay marka hore magaranaysa oo guriga ku noolaayeen balayay saymiga markii dambe la xaqiijinayo guriga ku noolaayeen oo ay u shaqeyn jirtay gabadhan xaafaddan inay ka yar u shaqeyn jirtay dabeetana in staatay guriga ku yimaadeen marka in kadibna in 20 cisho markay guriga noolayd ay galabta dambe iga tagtay markay iga tagtay dabeeto in hooyadii oo doonaysa ayaa timi gurigii markay timi in ay xaafadii weydiisay amanay ma inankii Cabdiraxmaan kula joogay iyo marka xaafadii maqlaysay ma tini Cabdiraxmaan lama joogin waxa la joogtay inan la yiraahdo asma dabeeto saasay ku fashilantay arintii iyaga fashiliyay markii dambe anagu waxba ma ogaanin marka in maxkamadda waxay saldhiga iftimaa ku soo xidhnay inankii iyo gabadhiiba kiba doonteen markii saa ay hooyadii tiri ma ahayn gabadha inankaygiiba habay tiri markii ay caynka tiri gabadhii iyo gabar kale walaaliyiino in guriga tilaga soo wareejiyay ayaan xidhnay oo in guriga intaan ugu yeedhay guriga keenay ayaan ku arrintaas dhacday dabeetana arrintaa ka warrama waan waxay arrintaas u jirtaayo ninkaas waxaan inaan muhayn marka xaafadii baa ku kacday oo tiri maxaa dal noogu qarinaysan ayaa biyo ay la saxan jirtay ayaa xanaaqay oo in meeshii maxaa dal noogu qarinay tan war saasan ku xidhnay saldhiga ku geeyay markaan saldhiga geeyay labadoodii walaal ahaa ayaan ninkiina keena markaan wixii iyaga keeno markii dambe naloo keenay isagoo nin caadi ah oo dharkii rag xirma ayaa saldhiga la keenaa shakiniga ma gelin shakiniga macal xaafadda way dareemay wax dareemay waxaan waa nin demana aniga la cadeeyay reerkood baa cadeeyay fashiliyay anagu ma dareemin waxba ma dareemin gabadh inanu banaysan internet guursan ka hor marka ruuxa la sheegan jiray inaan qofkan kan isbedelay ay marka hore la sheegan jiray marka wuxuu diyaar ma yahay inaan noo shaqeysa ayaan baraya marka saadirtii inuu bareekan markii uu barayna inaan tan walaalayn bay la soo hadashay telefoon miisan iyadu marka waxay tiri inaga Cabdiraxmaan ay maadiga ayo masan kulaha laakiin inaan tayada ma sheegaysan waxa inaan tibu naga la tagay baa leeyahay noo kaarayo de waxba la tagay Cabdiraxmaan oo inaan kaaraya ka xis oo caadi u soo fadhiisay si caadi saadirtii taatan ku kale marka taatan gabadha ku gursan xakabada iyo saldhiga si wanaagsan loo shaqeeyeen marka waxaan ka codsanaynaa culimada diinta iyo wasaaradda diinta iyo waqafta iyo riyaasha dhaqanka iyo dadka islaamka inay naga caawiyaan oo arinta nala eegaan oo soo garab taagaan oo noogu yimaadaan arinta dhicirta maaha waxaan ugu dhacay dhibaato xoog leh baan ugu dhacday reer dhanoo burburay guurkii qasaaroobay iyo reerkii iyo wixii magaranaysa oo dhan baan ugu dhacay dhibaato weyn baan ugu dhacday marka in lala eego arintaa la yimaado wasaaradda diinta iyo waqafta iyo culimada diinta iyo odayaasha dhaqanka nala eegaan dadka islaamka oo dhan waxa kala kulmeen inta badan guriga ma joogin roodi baan qaadi jiray magaranaysa maalintii oo maqan jiray habeenkii inta hore koob iyo toban kan habeen ma jiray marka in iyadoo iska tagtay xaafadii aan geeyay tagtay ayaa nima jiray magaranaysa marka dee in halkaas ma ku biilin jiray oo jaa ku hayay labadooda ninkii naagta sutade imala ku biilin iyo ku ilaalin iyo u shaqeynayay marka in waxay ku kalifay waxay ku kalifay jiray wuxuu jiray markii horeba sheekada markii horeba waan sanan ismaar jiray guriga joognayba aan cayn kana qaban jirnay marka tiye guriga la joogin maxaa la yimaadeen dii laba qof oo isoo tumay marka horeba xagga isbuut in lama soo in way noo yimaadeen laakiin waxba lama xajisan waan in wada sanoomay si caadi noogu iman saldhiga yimaadeen waxay ku nagu ilaahin dadkeen cadcideen iyo reerkiin wax dhidheen marka aan reer nooma hadee qofka wata yahay ninka labadan ninkeena ka taysatay haayeen ay noqdeen marka reerkaasi nooma iman nooma isoo fadhiisan marka waxaan warqnimada in macal reerkooda ku ogaayeen iyo magaranaysa xaafadii iyo wixii wada isku ogaayeen ayna ku arnaa halka saatan malayna inan baa xidhan leeydi waxay yiraahdeen marino ka jirtay marka horeba isku xaafad haayeen intaas ma xidhan laakiin familygooda gabadhii kala soo wareegin gabadha soo wareejisay gurigeeda laga soo wareejiyay ina moogay degan tahay magaranaysa marka iyadoo lama soo anigu waan xidhay laakiin waa la sii daayo saldhiga sii daayay waan la iska baaraa la iska qabsadaa deelay waxa kale wax dhici jiray ma Cabdiraxmaan markii la weydiiyay ninkan gabadha isku bedelay la yiri markii maxkamadda la geeyay maxaa waxaan kugu kalifay muxuu ku dooday horta wixii wala marka la waxa ma sameeyay horta wali waxay ku kalifay lama weydiinin anu lama cadayn laakiin marka la waxa ma sameeyay wuxuu dhahaa wax walba ha biiliin
وواحد دي وقرانيا واحد قرال وإلى محكمة إلى سليق واحد وقرال مركا إن وحكوا كل فايدة لكن يقول واحد يقولون أباه بيجي تريو أنا مقرنش ده بينا كنا مشوقين ده نقبل على الجرسات شوكتي ده أنا وأنت أنا لا تشوكتش دوري تمن يلا إنا نبان وركين إنا يلا إنا نبان وركين ولا شيء عاوني سولت شوكته marka inta ku wala maxad inta yar Fariida ninka ka qaadan doonta asmaa aaminaye inta asmaa isdaaf ninka ka qaadan wallahi waa Fariid yare isaga waxa tireel baanayo abooyad baa tiri inta iskuulku fasax gaadhay ilaa ku noolatay daayna taasoo dirin marka saatina dama naan shudayna waska aamusnay marka halkan dariiqa noo maraysa inay yaro waxaan moodayno si fiican reerku u shaqeynayso nin khayr kulka dharka jirka meedhanayo biyaha guriga u dhigi jirtay isuuliga u dhigi jirtay tiisumay maamul jirtay ninkan inta rasmiga ninkan noqotay ayaa maamul jirtay reerka saliida madaxa la marsaa haday tahay inka iyada u keen jirtay qofkaas aan jiraa amina in qoyan baa tahay anagu dawaan ka xishoon jiro inanka seediga waa laga xishooday inantaada qureecda u gaado ninka ku qaba oo inanka hoos dirina ka jooji waxan noo meedhan jiray waa aamin jirtay iyaga is ogaana waxan wuxuu yahay hadalka ma keen jirin marba halkaas aan xanuunsan jiro macaani Allah waxaan jirin aamina Allah cod weyne waan ka naxay wala marka ayaa tuure kulaanan jirin waan ka naxay balay codka weyn markaas oran jiray ninkii maxay safay leedahay cod weyn baa tahay ku oran jirtay horta codka dib u duubi jirtay qolka yar codkeeda yar dareemayna nabasha codkeedu maxay tahay waxani way yar duubi jirtay codka marka inanta yar yar waxaan ma sid fiican u tababar fiican la siiyay ma jiray wallahi waa inaan markii la iidaan maxkamada ku arkeen arkay wajigeedii wallahi matana asmaa ma ku matana asmaa marka waxba la isbarbarin jirtay miyaa oo iskama wayna qaadeen BMT iyo qasilka kolla wajigeeda ma dhimi jirin hadda in yaro 5 mirir may maqnaan jirin wajigeedani dhooban bas ay marsan jirtay waxaan habluus mariyaan emta qasilka da waxa habluus mariyaan bis marin jirtay naasay roob bush isku sameysay guud yaro dhimatiman dheer isku sameysay deena yaro si fiican oo tababartay iska leedahay yaabisan baahan jirtay walaalo oo ma sha Allah ina si fiican oo tababartay ma jirin waxaan jiraa aamina inta yar Fariid inta halka farsta kaabada aamina iman yeeray aamina inta yar Fariid waxaan ka yaa wiilka Cabdiye ina ka qaat adoo in yar qabuuba taayaan ku yiri inta Fariid saam ninka maamulaysa shirka meedka u dhigaysa biyo ku dhaqanayo ee saliid u dhigaysa qadada siinaysa way ka qaadan inta istaafi